ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah hal sabab oo ay dowladda federaalka qarinayso oo uu qabsoomi la'yahay shirka Dhuusamareeb. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka digay arrin ay sababi karaan ciidamada dowladda federaalka ee Dhuusamareeb. Dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay in la xirayo iskuulada qaar ee dalka ka shaqeeya. Haddaba sababta wararkeena ayaad ku daawan doontaa. Sare u kac xoog leh oo ku yimid qiimaha diyaaradaha Kismaayo iyo Nairobi. Aqoonyahan ka digay hadal ka soo yeeray Faysal Cali Waraabe. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkan hadduu eebeedmo. Markaan u diyaar garooba iyagoo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownay Professor Ibrahim Maxamed Miicaad ayaa si adag uga hor yimid bayaan ay dhawaan soo saareen gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faysal Cali Waraabe iyo xubno kale uu ka mid yahay Cali Khaliif kaas oo ay ku sheegeen in ay xal ka bixinayaan hadalkii taliyaha ciidanka qaranka sareeya gaas Nuux Ismaaciil Tani. sidoo kale Professor Miicaad ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay arrintaasi oo sheegay Faysal Cali iyo cid kale aynan xal ka bixi karin meelayna u soo maraan aynan jirin. dhanka kale professorka ayaa ugu in kooxahani ay ka digtoonaadaan faragelinta ciidanka. Faysal Cali Waraabe oo cudiyo iyo dad kale ay kaga hadlayeen janarkan military ama waxaan u yiri waa la bedelay oo marka dad u jeedo laba jaanis helayo meel ay ka galaan bay helaan oo ay bedeleen isagoo askar buu la hadlay askarta desert oo waajibaadkoodu ka soo bixi waayeen qaarna way talaabeen oo baxsadeen kuwa ka taga qawaaniinta askarta waa desertation waajibaadkiisa ka baxsado waa dilba kuwa iska diida askarum soo kale laakiin taas marka waa isagii askartiisa u taala qabiil bay marka u bedeleen waa ayaan daroway in Soomaaliland aad daba gurto oo waxaan tirinayo wax walba wax ka daydo. waxaa markii saddexaad dib u dhac ku yimid shirkii dib u heshiisiinta beelaha dagagal mudug oo ay bilowyin ka hor iclaamisay dowladda Soomaaliya kadib markii ay heshiis la gashay Ahlu Sunna iyo madaxweyne Xaaf. shirkani ayaa wajahaya hal caqabad oo kaliya taas oo sababtay in uu dib u dhac ku yimaado muddo dhan 3 jeer waxaana inta jeerba uu baaqanayay hal sabab oo ay diidan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya in ay shaacayso. caasimada online ayaa ogaatay in shirka dib u heshiisiinta galmudug sababta kaliya uu qabsoomi la'yahay in ay tahay in la sugayo inta uu ka dhamaanayo shirka ka socda magaalada Hobyo ee gobolka Galmudug. qaar ka mid ah madaxda shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayaa maanta noo xaqiijiyay in uusan qabsoomi doonin shirka Dhuusamareeb ilaa uu ka dhamaado shirka Hobyo ka socda kaas oo ay yeelanayaan 5 boolood ee ugu saameynta badan beelaha dega Galmudug. dhinaca kale waxaa la filayaa in maanta ilaa iyo caawa waqti dheeri ah lagu daro shirka beelaha Habargidir ee ka socda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ka qaybgalayaasha shirka. odayaasha iyo siyaasiyiinta Habargidir ayaa u muuqda kuwa diidan sida ay dowladda Soomaaliya u maamulayso shirka dib u heshiisiinta Galmudug isla markaana ay isku dayayaan in ay ku cuuryaamiyaan shirka Hobyo ka socda. sida aan ka soo xiganay saraakiil xog ogaal ah caasimada online ayaa heshay xog dhammaystiran oo sheegaysa in uusan qabsoomi doonin shirka Dhuusamareeb ilaa uu ka soo dhamaado kan ka socda magaalada xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug kaas oo u muuqda in uu qaadan karo waqti kale oo dheeraad ah. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay ciidamada ay dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay deegaano ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in aysan maamul goboleedyada dalka u baahnayn ciidamo Muqdisho laga diro balse ay u baahan yihiin dhismo ciidan amni deegaanadooda sugi kara. Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale wax uu ka waajiyay in ciidamada dowladda federaalka ay Soomaaliya ka dirtay si ay howlgallo u fuliyaan deegaano ka tirsan maamul goboleedyada dalka ay u horseedi karaan burbur ku imaada dalka. waa sida uu hadalka u dhigay ciidan Soomaaliyeed oo Muqdisho laga soo diro oo gobolada dalka howlo ka soo fuliya waxa ay ka mid ahayd sababihii u horseeday burburka dalka. dowlad goboleedyadu uma baahnin ciidan kor looga keeno ay waxay u baahan yihiin dhismaha ciidan amni deegaanadooda sugi kara. waxaa loo baahan yahay ciidan dastuur iyo sharci dalka u hoggaansama lama baahna ciidan damaca siyaasadeed ee madaxda markaasi joogta ku shaqeeya. inta aanan meel kale loo dirin ciidanka Muqdisho laga dirayo waa in ay shacabka Muqdisho ka badbaadiyaan canshuurta ay al-shabaab dekada iyo ganacsatada kale ka qaadaan. nidaam xukun oo xarun dhexe ka talisa ciidanka hawada siyaasadeed ee madaxda talada haysa ku shaqeeya iyo habdhaqanka guulwadeenta ah waa tijaabo horey loogu soo hoogay waana tan aan ku diidanahay kooxda nabad iyo nolol la baxday. hadalkani ayaa ku soo baxay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli ay dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Dhuusamareeb geysay ciidamo kuwaasi oo ku biiri doona kuwa kale oo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa magaaladaasi. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa maanta sheegay in maalinta Axadda ee soo socota uu dalku yeelanayo guddi tacliin sare ee dalka kuwaasi oo la socon doona heerka tayada waxbarasho ee dalkaasi. Dhinaca kale wasiir Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in 30% oo kaliya ay ardayda Soomaaliyeed helaan waxbarasho halka 70% ay gurijoog iska yihiin. Waxa uu sheegay in ardaydaasi u nugul yihiin ka qaybgalka colaadaha dalka loona baahan yahay in arrintaasi wax laga qabto. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in imtixaan ay ka qaadeen macallimiinta hoose iyo dhexe 22% kaliya ayaa u qalma inay macallimiin noqdaan, isagoo oo soo jeediyay in sidoo kale 78% macallimiinta wax la baro. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed bixiyaan canshuurta haddii kalena ay dowladda tuugsan doonto, taas oo ka dhigan in ciddii lacag siiya amarkeeda ay ku shaqayn doonaan. Waxa uu sheegay wasiirka inay tahay in ardayda dugsiga hoose iyo dhexe loo dhigo sanadkani buugaagta manhajka dowladda, isla markaana iskuulkii ka soo horjeesta albaabada la iskugu dhufan doono. Wuxuu intaasi ku daray in sanadkani inta uusan dhammaan ay soo dhammaystirayaan buugaagta ka harsan manhajka ee lagu dhigo fasalada 9aad ilaa 12aad. Sare u kac xoog leh ayaa ku yimid qiimaha lagu raaco diyaaradaha rakaabka ee iskaga kala goosha magaalooyinka Kismaayo iyo Nairobi kadib amar ka soo baxay dhawaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ee lagu amray in ay diyaaradaha tagaya iyo kuwa ka soo baxaya Kismaayo ay soo maraan magaalada Muqdisho. Go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo dhaqan galay ayaa sabab u noqday in uu sare u kaco qiimaha lagu raaco diyaaradaha Kismaayo iyo Nairobi. Diyaaradaha rakaabka ee labadaasi magaalo ayaa markii hore lagu raaci jiray ilaa iyo lacag gaaraysa $230, halka hadda lagu raaco $290, taas oo ka dhigan inuu jiro qiimo koror dhibaato ku ah dadweynaha. Walaaca aan qabno wuxuu yahay in muddadii lagu safri jiray ay markii hore ahayd saacad iyo bar markii uu duulimaadku u ahaa, taas haddana Muqdisho in la maro ayay noqotay oo waqtiga waa uu dheeraaday. Dadka rakaabka dhib ayay ku noqotay, wayna iska dhaafeen safarka, annaguna dhibaato ayay nagu noqotay, ayuu yidhi Cabdi Macalin oo ah maamulaha shirkadda Freedom Airlines. Wuxuu intaasi ku daray in ay yaraadeen dadkii diyaaradaha u raaci jiray Kismaayo iyo Nairobi maadaama waqti badani ay qaadanayso safarka. Go'aanka xayiraadda lagu saaray diyaaradaha Kismaayo tagaya iyo kuwa ka imaada ayaa ku soo aadaya kadib markii ay dowladda Soomaaliya ay sheegtay in aysan aqoonsaneyn doorashadii Jubbaland oo ay ku tilmaamtay mid sharci aan ahayn. Tallaabada ay dowladda qaatay ayaa la rumaysan yahay inay tahay mid culays lagu saarayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo Kismaayo ugu qabsoontay doorasho dib loogu soo doortay oo aysan door ku lahayn dowladda dhexe.